iyadoo guud ahaan dalkan Kenya ay saameeyeen xayiraadaha lagula tacaalaya xanuunka safmarka ee COVID-19 ayaa xeryaha Dadaab waxay yihiin meelaha ugu daran ee la isoran kara saameynta xayiraaduhu waxay ku reebeen raadad mahadooyina waxaana dhaqaale ahaan dadyoga xeryaha Dadaab ku tiirsanayeen ganacsiga gudaha dalka Kenya iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha Dadaab dadkuna waxay ahaayeen horaan kuwa ku tiirsan shaqooyinkooda maalinlaha ah oo ay ku soo saartaan siyaabo kala duwan balse haatan xaalku waa mid cakiran oo cabashadiisa leh cadigan gadahay cadig waxa la yiri macnaha caafimaadka waaba la joojin waxa la yiri maxay la bahalkan gacmo badan oo soo maray kaas waa iga istaagay hadda anigu waa iska wareegaa marka meelaha iska maray hadda shaqo ma laha kuna kaasi saahiy anta nolol fiican baan heli jiray cida galabta qudaar aan qaadan jiray maxaan ku raahdaa lacag gargarka iska bixin jiray marka jaabkaygan waxba ku bari jiray account-kayga waxba ku dhacay shaqo waa shaqo kaasi waxa la yiraahdaa hadda wixii aan soo qaaday inaan dad ku sadaqaysto ma wax lacag hayaba ma dadka lacag ma haystaanba maxay gacan maran moogta waxa la yiraahdaa malkood meel mar wax kama qaado meeshan lacagta way ka dhamaatay qaxootigan oo uu ku jira adduunka waxaan ka codsanaynaa in dadkan il gaar lagu fiiro oo laga soo wardoono maxaa noo saameeyay si adag oo bulshada aad iyo aad u rafaasan tahay maxaa jira saddex qodob kala goonya maxaa jira dadkii masaakiinteed ama muruqbaalteed ama gaargacliyeed ama gaar taksi ahaayeen macalmootaaliyal magaalo waa jam maxaa arkaysaa nin gaar la arkaysaa ilmihiisa ku dhagihiin oo halkii ayaan u habsaday ilaahay baa u dacwo karnaa ilaahay naga saara marka Soomaali maxaa ku noqotay cudurka masiibo adag bulshadii dhalinyarada xoog leed oo shaqeey jirtay meel ka shaqada laadahay waa oryaantay laba jir maxaa arkaysaa oo ilmihiisa maanta oo arbax waasaan ilaanta leeyahay arbixi wax ku arbixi ma laha gaari waa taagay oo fadhiya maadaama hadda dhibkan hay wuxuu yahay COVID-19 kaas ifo dhigaxli xaga dheer lama aadi kara Allah haddaan xawjba aan hadda ifo dhaxda anoo meel aadayn xawjba dhaxda askartana qabanaysa marka dawladdu kale mucaarad kuma noqon karno laakiin amarka waan qaadanayna waxaan rabnaa in ifo xaga dheer dhigaxli la soo furo aan ka shaqeysano marka meel kale ma aadaynaba dhibkan hay waxa xarunkan la furo bis marka dawladdu waxaan ka codsaynaa wadankaas isku furto ilaa qaxootinka hadda waa sharci qaxooti waa sharci ma haystaan marka amarka la rogo waxa ninka Kenyaanka inuu socdo salahay Kenyaanka ma qaxooti ma soo ma joogo aniga qaxootaan joognaa bayda waa qaxooti haysa marka waxaan islaamnimada lagu jirto waxaan qaxootiga hadda joognaa inay xarunka noo furaan gaadiidleyda tagaasida ayaa horaan noloshooda ku dabari jiray wax soo saarka gaadiidka tagaasida isaga kala goosho gudaha xeryaha Dadaab balse haatan ishaas ayaa u muuqata mid gudhay noloshuna waa mid adag magacaygu waa Xirsimire waxaan ahay dadkan ka shaqeysta mataatuuleyda wallaahi cudurkan wuxuu noo casiibay si aan xad lahayn saameyntiisa xeriyoo la kala xidhay dadkii oo aan baabuurtii dhaqaaqay dadka waxay ahayn rag waxaa jira intana cid u degantay xaggana cid u degantahay hadda waa la isu gudbi waayay waxa weeye qofkii ma soo bixi karo ilmihii waxa weeye dugsiyadii iyo wixii waa laga reebay dhibaato aan caadi ahayn iyo dhaqaale burbur noo ku soo kordhay laakiin insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaanu ka baxno aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Aadan Sheego Maxamed waxaana deganahay xerada qaxootiga dhagaxley professionkaygana waxa weeyaan taksiile tagaasida ka shaqeysa Dadaab ilaa xagar dheer ilaa ifo ayaa maartay howlahayga ay yihiin marka alxamdulillah rabbil caalamiin intii oo ay nala soo gudboonaato cudurkan oo coronavirus oo ay dawladda soo saartay in maartay gaadiidka la fariisiyo oo aan xerooyinka soo gudbin culeysyo aad u fara badan ayaa maartay soo saameeyay xagga dhaqaalaha xagga maciishada dhan walba haduu Ilaahay ku roon yahay dadkiina ay iska danyar yihiin oo hadayba ay meesho xero qaxooti iska ahayd dhaqaaluhu iska yaraa duruufta nolol xumo ee ka jirta xeryaha Dadaab ayaa gaadhay halkii ugu sareysay abid waxaana jiray horaan hooyooyin u socdaali jiray degmada Dadaab iyagoo soo dhacsan jiray noloshooda maalinlaha waxayna ku safri jireen gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha xeryaha Dadaab balse haatan hooyooyinkaas ayaa ku safra lugtooda oo masaafo ahaan u muuqda mid ayna taalin waxaan ku soo dhawey ifo lama tobanka kala ilaa ma shir Dadaab aan soo saamaanta nagu yeelatay gaariga iska raac jirnay gaariga waxa la coronavirus imaaday laslama gali karo udara laga cabsana number lugtiisa meesha ku gaari karo adoo lacag haysato taa in gaariga laga cabsado ayaa nagu dhacday waxaan u soconaa Dadaab meelaha iska soo xamaalinayna waxaan la dhahay corona ya meesha jooga iduraan taalaay
oo gaarihii waa inoo diideen waa iska xamaalanaynaa isku rafaasanahay maanta waxa la qabanaa dhulka la xaaqa daarada la xaaqa guryaha la dhaqa alaabta la dhaqa oo ma garanay aan gaarina la haysanin oo walaalaha la dhaqa gaarin aan la haysan luweys hor gadaal oo orod gaariyaha saana noo dhaafaan ka dhab maaragtaayo dhadhaab baan iska xamaalnaa dhar baan iska soo dhaqanaa xamaal ma dhahda oo maaragtaayo ka biraha oo maaragtaayo bisha oo maaragtaayo yaa iska soo shaqaysana marmar lug baan ku tagnaa si koronagan u dhacay maaragtaayo gaarin waa la lacsan hataa dadka jidka marayo oo soo shaqaysanay dhib baa u geysatay maxaa la dhihi jiray dadka soo hamaalanay oo dhan waa la kala cabsaday maxaa la dhihi jiray dadkii hadda duurka aadayeen qoryaha doonan jireen hadda qoryaha waa doonan lahayn xanuunku inta dhacay gaariyaan waasanahay waan rafaasanahay dhadhaabaa u socda xamaalitaan ku jirnaa Bashiir Gaxnuuga RTN xeryaha Dhadhaab